السلام عليكم ولاليال السود وهذا مقال عصب maanta waxaan nahay arbacadii baan caadiyaan sameeyaa suubiya daraashinka toddobaadka so imika suuqan taganaa maanta inan aan la shaqeynayo oo de one month consultation aan sameynayo baan suuqa isku raacanaa waxaan rabaa intaan tuso desa alaabta loo kala doorto liska ilaaliyo the hidden sugarka sokorta la arkayeen so inshallah ina marsha vlogan de wani vlog wani duwaya waxaan weydiisanaa de video iga duubi karto markaan alaabtaan qaaday adoo waa arki doonaa because badanka Costco baan tagay Costco guna de si fiican waxba lama maqlo waa meel weyn xilligan oo kale dad badan baa ku jira so inshallah waa arki doonaa adoo ala kulli xal vlog wani duubi adaan ni duubi karin anoo suuqa jooga waxaan de markaan suuqa ka soo noqono baan ni duubi waxaan suubi inshallah nala socdo Oh my god, I love this. Anyways, waxaan dhigay camera gaarigayga because waxaan doonayaa intaan nii duubo anigoo de wada gaariga so waan ka warkeenay bar maanta saniga lahaa suuqaan teganaa inan baan is arkanaa imika saacaddu waa 2:40 adu 3 xaggaa joogi doonaa waxaan soo qaadayaa markaan inankaygan ka soo qaaday daycare-ka but let's test drive this this is so weird bismillahir rahmanir rahim oh my god baraf baa gurigayga hor yaalo okay let's go guys murayada oh my god this is so much fun I hope it does يعني imaqlasiin but anyways guys saniga lahaa maanta suuqaan tagayaa raashinka toddobaadka waxaan aduu raashinka bisha runteeda la sheego labadii toddobaad baa kol baan tagaa every 2 weeks badankana waxaan tagaa toddobaadka dhexdiisa like arbacada sababtoo tahayna haddaan tagin arbaco haddaan taga weekendka arta Costco waa buuq waa la buuxaa weekendkiina ma rabo inta wax badan de inta suuqa ku maqantiid waa 3 saacadood bay ka qaadan imika laakiin waan galaa saacad bay ugu badan tahay saacad kadib aan ka soo bixiyaan alaabteeda oo soo iibsaday weekendkii waxaan jecel yahay intaan free ka dhigo axadeeda waxba ma qabto axadeeda waa maalinta nasto sabtidiina gurigan ka shaqeeyaa cuntaan kariyaa So yes, let's go guys. This is so exciting. I can finally vlog in the car. This is amazing. So what cuz? Oh my god. When tayar hagajiya. But so warkisin Canada wali baraf banooda aya but alhamdulillah imika March baa lagu jira dhulku soo kuleelaanaya. I can't wait for the summer guys. Anu waxa igu dhaca waxa la yiraahdo seasonal depression. barafku markuu soo galaba nafteeda like I don't understand myself so alhamdulillah laakiin markuu barafku naga baxaya markuu barafku ka soconay dhulka oo aade ila hawadana way isbedishaa waxa urin kartaa nacam amudi like I don't know wallahi nafteeda uplifting baan dareemaa like farxad maan dareemaa so that's why I said a seasonal depression ma kulay baleeyahay so ani wara mashale waa maalina soomanaa baheed caadiyaan waan soomanaa maalintoo dhan ilmaa 4 galabnimo and then 4 galabnimo mooyaan waxay ku dhacay waa cunta cunay I think waxa badanka markaan siday markuu deeyno waqtigii bisha soo dhowdahay saama yahay emotional and waxaan u baahanaa cunto macaan So anyways, maanta caadiyaan maalina cunteynaya baheed so waxaan sameynayaa saaka coffee baan suubsaday laakiin waxaan sameynay cunto ma cunayo maanta gaaji ma hayso maantana waa maalin very busy imika markaa shoppingkan sameeyo inankaygaan soo qaadayaa aniga odagayga waan isnadaaminaa maalin odagayga inankayga maalintoo dhan haya maalin aniga haya so maanta odagaygu la joogayaa inan baa ii imanayso oo maan la iraado oo waxay gargaaraysaa sharaxaada office-kayga so waan dhameynaba sharaxaada office-kayga waxa alaab yar ma noo haray so kana waan duubayaa insha Allah
وانا ده وي منصة وحير باني دوبي بتورك وحاني سميني أدو مالين كله لكن يدنا وي منصة مركز أنا shopping كدب. Oh my god, why is this moving? وانت حاجة تاسد وشوبينج كدب وانت أنا يلا سكنا so مانتو are very busy مالنتا مو يندس في عمين مقلسين با مالنتا I'm busy أي هاي waxaan jecel yahay intaan soomo cause cunto kama fikirayo waan cararayaa biyo ma cabaa so anyways highwaygan qaadananaa kamaraaga waan joojin so insha allah waa inoo Costco hadaa wax nii duubi karo waa nii duubi insha allah السلام عليكم والاليال يمكن كسب بحي كاسكو ونمدوبي waxaan rabay intaan ii duubo laakiin way noqon waayday waa la buuxay maanta Costco ma aan soo dhacday adiyaan toddobaadka dhexdiisaan tagaa because waxaan isleeyahay qof dad badan ma joogo laakiin maanta waa la buuxay oh my god trunk-keygii baa furan waan soo xiro okay now it's better so imika saacadu waa 4:10 inankaygaan soo qaadayaa markaana gurigaan teganaa alaabtan suubiye baan yar tusi bas dee wallaahi waxaan doontaa nii duubo shopping kale laakiin wala noqon wayday alaabtan i tusi markaana inantaa guriga imani and that's it guys let's go inankaygaan soo qaadanaa السلام عليكم walaalayaal so imika soo galay guriga inankaygu waan keenay kulliba mooyanda maqlaysiin basementka u dhaadhaceen waxaan yar tusay alaabtan soo iibiyey so markasta waxaan u soo qaadaa fish breaded fish waa kalluun ingredient kode waa iska caadi you know organic bay ku qoreen meesha zero trans fat aduu isku fiican yahay waxaan kanuu soo iibiyay inankayga maalimaha dee cunto inuu haleelayn intaan kariyo so kani baan siiyaa air fryer kan guriga uu jecel yahay waa kalluun is not bad maanta mooyaan lama qaysin qeylada oosta ka dhacasa basementka u dhaadhacen isaga abiy maanta waxaan soo qaaday whipped cream walaalayaal waa bilaa sonkor actually brandkay ku xiran tahay laakiin kani Costco aan kasoo iibsaday waa 1 gram of sugar baa ku jira so waa wax iska fiican so kani waan soo qaaday sababtaan soo qaaday kulliba aniga you know wajigaygu ima fiicno whipped creamku caanaha laba wajigaygu casacsan ugu keenaa laakiin maalin dhaaf baa imika cunto cunaa Starbucksna markaste aan samaysanayo coffee kani baa nafteedu doontaa Starbucks baan doontaa marka waxaan isla bar guriga iska soo iibso iska hayso inankaygana waan ku dari karaa cuntadiisa wax kasta ku isticmaali kartiin so Costco waan ka soo qaaday maanta furunkan waa ka furunka marka soo iibsado aniga nafteeda waan soo iibsadaa caadiyaan laakiin inankaygana waan soo iibi maanta toddobaadkan isagaan ku tijaabinayaa marka uu sameeyo iska cunaa waa gluten free waana bilaa sonkor aad iyo aad buu wanaagsan yahay so isagaan siini doonaa insha allah furunkii kale baan ka joojinayaa so kani baan ugu bedelayaa maanta Costco waxaan ka helay dairy free yogurt so yahuudka caano weeyaan caanuhuna anigu ii dhibaa inankaygana eczema buu jirkiisa ka soo daadiyaa so kani waa dairy free waxaa lagu sameeyey almond baa u maleeyaa sokortuna waa iska caadi waa coconut actually coconut baa lagu sameeyey sokortuna waa 11 grams container key so it's sokortu waa 7 gram which is good but carbs got 11 grams
so waan tijaabini because rabadaanka soo dhow rabadaanka waxaan jecel yahay suxuurta intaan ku suxuurtay yahuur yar iyo alaab yar oo fudud oo very quick so waan tijaabini kani adii kale inaan kaga iska cunin doona kana waa baal cusub mar hore baad Costco mar hore keeneen waxa weeyaan pistachio actually caafimaadka aad iyo aad buu fiican yahay kana waa very clean waa pistachio waxay ku dareen extra olive oil and that's it saddex ingredient baa ku jira so waan tijaabin doonaa dad badan baan garanaya oo ka hela spread kan pistachioga waan ka warkeeni doonaa kana markaste waan soo iibsadaa waa aragteen salaadkaygaan ku daraa maxay kale kana waa kilo tortillagi markaste baan ka soo iibiyay Costco waa bilaa sonkor waa kilo so haddaa macaan leedihiid haddaa wax kilo ku qoran aragtiin qaata because sonkor male haddaa macaan leedihiid kani baan iga fiican inay ku iibsan lahaa rootiga caadiga ama tortiga caadiga so labaa soo qaaday ka gurigeyga waa la cunaa kana waa ka my favorite snack oo keto baa isna waa keto waa chocolate xagga dambe soo arkaysiin waa chocolate waana dus fiican kamaraagu qabanayo laakiin waa chocolate almonds iyo looses badan baa ku jira coconut it's very good so kani baan soo qaatay mousse fries kana kani baan soo qaaday brandkan wuxuu fiican yahay waa fries iyo wax kale la marin badanka wax badan bay ku daraa laakiin kani waa baraadhii oo la jarjaray so inankayga baraadha buu jecel yahay so waxaan kani baan soo yahay brandkan waxaan ugu yar daray milix yar iyo toon yar powder aad iyo aad buu jecel yahay so kani baan soo qaaday bacda intaa leeg maxay kale maanta wax badan ma soo iibinba waa ka naaladiina baa markasta soo iibiya ama ukuntan waa organic waana pasteurized iyo waa free range toddobaadkan wax cusuba kani baan soo iibiyey waa tabuli badanka waxaa lagu yaqaanaa labaniiska shawarmaha haddaad tagtiin markasta way hayaan tabuli so salaadkay wanaagsantahay taa ku darsatid wax kastaa ku darsan kartaa so it's very good so kani baan soo iibsaday maxay kale kanada waa sharaabkii bubliga odagayga jecel iyo kuush baa inankayga usoo qaaday that's it maanta shoppingkayga saa uma sii badno waxaana usoo qaaday macmacaan yar inankayga yar sharaab yar iyo biyo that's it guys insha allah xagga maan kusoo gabaynaya videoga maanta iminka saacadii waa 5:15 alaabtan maan kala guri oo xaraani inantii bay imanaysa officekeena maanta aan dhamaynaya insha allah I can't wait to share the core office-ka sababta uu rabo inta office-kayga sharaxo office-kayga waa meesha ugu waqti badan like waa meesha waqti badan waa meesha ande saacado badan maalintii dhex fadhiyo waxaana rabina inta meesha dhex joogto waa inta noqotaa meel tariiq soo galayo marka soo gashidba inspired ka dhiga so sanadkan waxaa to do list-kayga waxaa ku dhex jira inta office-kayga project-ka office-kayga aan sameeyo sanadkii hore waxay ahayd backyard-kayga waan dhammeynay ad wax yar maan la horay sanadkan laakiin sanadkan office-kayga weeyaan so it's the first thing aan ka check garanayo to do list-kayga ama my vision board sanadkayga so wakaas walaalayaal maanta waan soomanahay saa adaa ogeyn waxaan soomaa maalin dhaaf alternate day fasting baan sameeyaa so maanta waa maalin aan soomanahay caadiyaan maalin aan cunteynay ahaan lahayd laakiin shalay talo waa cunteeyey maantana gaajay ma hayso because very busy day weeyaan so wakaas imika maqrib baa la eedaamaya maqrib baan tukanay alaabta maan kala xidhaanay waan isdiyaarin makeupkii waxaa baan iska meeray inantii baan sugaya intay timaado wakaas walaalayaal insha allah waa inoo mar dhow maca salaama